بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وبعد. waxaan isugu ku yeedhnay inaanu si kooban uga hadalno arrin ugub ku ah hannaanka dimuqraadiyadeed iyo nidaamka dawladnimada dalka. soddon sano Soomaaliland jirtay ficilada hadda soo baxaya ku kacayso xukuumadda talada haysa waa kuwa baalmarsan ilaalinta nidaamka amniga, ilaalinta iyo xaqdhowrka iyo sharafta xisbiyada qaranka iyo wadajirka ummadda. waxaad ka warqabteen in maalinkii shalay ahaa gaariga gudoomiyaha xisbiga suuqa bartankiisa wiish lagaga dhex qaaday. ciidanka ilaalada gaarka waa gudoomiyaha xisbigana qaar ka mid ah xiryahoodii dib looga yeelay. sababta waxaasi ku dhaceen markaan u dhibo galnay aan isku daynay bal inaanu xog rasmiya ka helnana waxay u muuqataa xukuumaddii mas-uulka ka ahayd amniga dalku inay ka bareerayso dariiqa jeexista fowdo dalka ka dhacda. gudoomiyaha xisbiga wuxuu leeyahay ilaalo u gaara oo qaabilsan sugidda amnigiisa. ilaaladaasi waxay leeyihiin kana tirsan yihiin ciidamada qalabka sidee dalka. ciidamo beereed maaha, waa ciidamo isugu jira ciidamada bilayska iyo kuwa militariga. waxa loogu deeqay dirays iyaga u gaara oo ay xidhaan. dirayska muwaadin reer Somaliland ayaa ugu deeqay, waxaana loo soo keenay magaalada Saylac wayna ka doonteen. taliska ciidanka guud ee Somaliland waraaqdu ku amray in la soo siiyo dirayska ciidamada gudoomiyaha ilaalinaya wata. waraaqdii taliska ka soo baxday oo 16 diraysa oo ay soo qaadanayeen. wasaaradda maaliyadda amarkay farayso qaybta kastamaduna wadka oo agaasimihii gudba isaguna ku seexa. labada waraaqoodba waxay caddeynayaan in sharciga dalka ay u hoggaansameen ciidanka ilaalada gudoomiyuhu. nasiib darro waxa dhacday markay qalabkii soo qaateen iyo dirayskoodii ayaa lagu dhex qabtay bartanka magaalada iyadoo tixraac iyo reference-kooda iyo goobtay ku sugan yihiin iyo cidda ka tirsan yihiin ba la garanayo. cidda ilaalinayna oo gudoomiyihii mucaaradka ah, xafiiska ka tirsan yihiin waa xafiiskii xisbiga, guriga joogaana guriga gudoomiyaha. niman baadiya oo hal looba ma yahayn, waa niman ciidankii qaranka siday ee qaranka ka tirsan, waa niman identity-gooda iyo address-kooda iyo goobtay ku sugan yihiin la garanayo. amar waxa lagu bixiyay iyadoo sharciga dalka ay ilaaliyeen oo hay'adihii dalka u qaabilsanaa ama military ha noqoto dalka amnigiisa mas'uulka ah ama wasaaradda maaliyadda ee cashuurta qaadaysa ha noqotee labaduba ay ogolaansho ka haystaan in bartanka suuqa lagu qabto. kaga sii daran waxa dhacday in gaariga gudoomiyaha mid ka mid ah gawaadhida gudoomiyaha oo ciidankiisu ay wateen bartanka magaalada wiish lagaga dhex qaado oo xerada birmadka la geeyay. gudoomiyuhu xaq u leeyahay in amnigiisa la sugo sidoo Muuse Bixiba xaq ugu leeyahay in amnigiisa la sugo. gudoomiyuhu xaq u leeyahay in gurigiisa la ilaaliyo sida guriga Muuse Bixiba loo ilaaliyo. xasaanadu Muuse Bixi dalka ku leeyahay mid lamid ah ayuu gudoomiye cirana ku leeyahay. ilaalinta nabadgelyada gudoomiyaha, ilaalinta nabadgelyada mucaarid iyo muxaafid, ilaalinta nabadgelyada saxaafadiina waxay ga duubaysaa ilaalinta haybadda qarankan cidda ka mas'uulka waa xukuumadda hadba talada dalka haysa. intaa kadib waxa dhacday inaanu wali wax jawaab laga haynin
xukuumaddii talada dalka haysay oo ku saabsan arrinka anshaxa sharafta haybadda iyo xasaanadda xisbinimo iyo ta guddoomiyahaba baalmarsan ay ku kaceen nidaamkan maanta dalka taladiisa hogaaminaya xisbi ahaan waad ka warqabtaan mar kastaba mudnaanta inuu xisbigaygu siiyo isu haynta dalka iyo dadka astaanta xisbigu inay tahay ilaalinta nabadgelyada isu soo dhawaanshaha shacabka Soomaaliland iyo isku wadidooda gudoomiyaha talada xisbiga haya 13 sanadood wuxuu u shaqeynayay qaranka wuxuu ahaa gudoomiye baarlamaan tacab uu qaranka galiyay wadun ka warqabtaan Cabdiraxmaan Cirro maalintii qaraarayd ee Soomaaliland ay isku wiiqday inuu kursiga madaxtooyada dariiqa ka maray si aan dalkan amnigiisu khalkhal u galin wadun ka warqabtaan Cabdiraxmaan Cirro inuu damac dalkan iyo dadkan uu ku hogaamiyay inuu leeyahay ayna kana suuroobaynin wax fawdo iyo khalkhal gelinaya isku haynta ummadda Soomaaliland ayaan darada laakiin jirtaa waxa cad oo ay tahay xukuumadda talada dalka haysa waxaanu Cabdiraxmaan Cirro diyaar u ahayn inay ku dirqiya xukuumadda waxaan u sheegaynaa haddii mas'uuliyaddii amniga gudoomiyaha ayadu wakiilka ka ahayd ama ciidankii qaranka ee isugu jiray biliiska iyo militariga ee amniga gudoomiyaha sugay in maanta ka xisbi ahaan aanu ku aaminayn nabadgelyada ammaanka gudoomiyaha oo dadkii taageerayaasha u ahaa ay ilaashan doonaan xasilinta iyo xasaanada iyo xilku gudoomiyuhu hayo iyagu mas'uuliyad ay ka yihiin inuu lagu haleyn doonin nidaamkan xukuumadeed ee dalka maanta taladiisa hay laba waxay qadaf iyo nabar iyo boog hor la ku tahay xanaf xun ay ku abuuraysaa taageerayaasha iyo sharafta ee xisbigu uu leeyahay in harcad gudoomiyaha gaarigiisa sidii gawaadhida qaraxda oo kale inta wiish lagu qaado birmadka la geeyo oo sharaftiisa la dhowray waxaan ugu baaqaynaa nidaamkan xukuumaddan maanta talada dalka haysa 24 saacadood gudahood inay gaariga gudoomiyaha ku soo celiso raaligelin buuxdana ay ka bixiso ficilka foosha xun ay kula kacday haybadda iyo xasaanada gudoomiyuhu qaranka ka muday saddex waxaan ku dhiirigelinaa taageerayaasheeda waxa la idin ka rabaa oo la idin ku xanxanteynaya xuma aan qalbigiina ku jirin in la idin ku abuuro laakiin ma tihidin idinku kuwa qaranka bartooda laga soo dhacay waxa gudoomiyuhu uu astaan idin ku yahay isku haynta iyo wadida iyo sharafta shicibka Soomaaliland wuxuu damac kaga jiraa hayaanka iyo halganka dheer uu ugu jiraa hogaaminta dalka hamigiisu maanta xifiltan taagan baaha iyo xanaftay abuurayso xukuumaddan hadda joogta ee faashilka ku ah sugidda nabadgelyada dadka waxay dikaydu ku baaqaynaa inaydun qaranka qaybtiina haysaan inaydun astaanta nabadgelye ee gudoomiyuhu ku suntan yahay aydun ku ilaalisaan qaranka wana bartiina looga soo dhigay ugu dambayn haddii tallaabooyinka noocan ay sii socdaan oo xukuumaddii maanta laga sugayay inay xal ka keento mashaakilka dalka ka taagan hankeedu uu ku soo meeraysto inay xumayso ama ay xagato xasaanada gudoomiyaha inaanu xisbi ahaan sii dul qaadan doonin mar dambana tallaabooyinka noocan oo kala ah aanu aqbali doonin aad baan idinku mahadnaqaynaa arinku wuxuu u dhacay sidaad arkaysaan وإذا مهسنتهين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته